maan rabin inaan ka cararo booliiska balse waxaan dareemay xoogaa naxdina waayo maan ogin hubka saaran xagga dambe ee gaadhigayga way xidheen balse taasi waxay ahayd wixii iga dhigay qofkaan ahay hadda waxaan ahayn saaxiibo NBA young boy balse hadda ma aha xaaladdu sidaa ma jirta cadaawad weyne haddana ma nihin sidii hore dadka la yaaban inaan u sameeyey casuumad ku fadhida $100,000 Mareykanka gacalisadayda waxayna ogeen inay noloshayda oo dhan leedahay adduunna aanan ku qiimaynaynin iyada oo qaar ka mid ah hadalladiisa fanaanka iyo raabarkaadka loo xisiiyey wakhtigan Nella Joba maanta waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena maalinlaha oo mid ka mid ah kuwa loogu xiisaha badan yahay daayarta iyo raabariska sabanka Nella Joba wiilkii la guddoonsiiyey shahaadada dahabka ama platinumka markii uu jiray kaliya 16 sano inagoo isweydiin doona sababta uu manager ugu dhigtay hooyadii criminal case-kii ku kalifay gabi ahaanba inuu soo taabto sagxadda jeelka waqti aanu filanayn ciyaarta kubadda kolayga oo ay wada ciyaareen Chris Brown iyo falxumadii ay sababtay taasoo gabi ahaanba embarrassment ku ahayd Nella Joba cashadii iyo surprise-kii qaaliga ahaa kaasoo dad badan ay la yaabeen kadib markii uu ka bixiyey $100,000 Mareykanka hal habeen oo casha sababtii uu feedhka ula dhacay taageeraha NBA young boy dhimashadii ilmihiisa hadalkii cajaa'ibta badnaa uu ka yidhi goobta xilli uu soo saaray heesta murugada badan ee muujinaysa qiimihii uu lahaa ilmihiisu iyo qodobo kale oo laga yaabo inaad ka ogeyn hobalkan iyo fanaanka da'da yar ee Nella Joba balse ka hor intaas waxaan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan aad ula falgashaan markasta muuqaaladeenna haylaawin inaad like-gariso klibka subscribe si aanay kuu dhaafin muuqaalada dambe lana wadaag saaxiibada haddii ay munaasib tahay ninkan magaciisa saxda ah waa Bryson Bottas balse xirfad ahaan wuxuu caan ku yahay Nella Joba wuxuu ku dhashay 1 November sanadii 2002 Memphis caasimadda stateka Tennessee oo dhacda cariga Mareykanka waxaa iska dhalay aabba Afrikaan Mareykana iyo sidoo kale hooyo Jamaican waxayna isla soo aadeen cariga Mareykanka si ay uga soo raadsadaan halkaas shaqo iyo nolol qurux badantii ay ku jireen waqtigaas halkaas ayayna ku dhaleen Nella Joba una ka soo baxay fanaankan iyo raabarkan cajiibka ah easy. His environment taught him at a young age to be humble, but he also learned quickly that he couldn't trust a lot of people. waa fanaan raabar cod sameeyay sidoo kale qoraaheeseedan codina joojin kareen wuxuu ku kasbaday dhuuntiisa malaayiin qof oo ku sugan adduunweynaha gaar ahaan shacabka ku sugan South America muddooyinkii yaraa uu fanka ku jirayna waxa uu kalifay inuu ka soo muuqdo shaashad kasta iyo muraayad kasta xilli uu magaciisa ku daabacay qalbiyada dadka taageera raabka iyo fanaaniinta reer America. While elementary and middle school, playing basketball occupied most of his time, and he claims to have been a very good point guard. Joba intii uu ku jiray iskuulka waxaa uu jeclaa ciyaarista kubadda kolayga waxaana sababay firfircoonidiisa iyo freestyle-kiisii waalida xilli uu kaga yaabsaday maamulkii ardaydii ka tirsanaa iskuulkiisii yaraantii Cardofo School balse nasiib darro uma ay suurtagelin inuu sii wato qaab ciyaareedkii iyo mihnadii waqtigaasi aadka u jeclaa waxaana duway oo raacay dhinaca iyo hawada muusiga iyo raabka marsi waxaa laga weydiiyey arrintaasna waxa uu kaga jawaabay hadal qosol leh isagoo yidhi waxay naga soo saartay uur aad ayay noogu dheeraatay waxayna ahayd mid aan midho dhal badan lahayn balse weli waan jeclahay kubadda kolayga. Alright, what made you decide to give up basketball for rap? Joba wuxuu aad u jeclaa xilligii iskuulka sidoo kale aadna u dhegaysan jiray qaadina jiray heesihiisa fanaankii waalida badnaa ee aadka u kacsanaa waqtiga Lili Wayne heeray maamulka ka dacweeyeen ardaydii kalaasku iyagoo leh oonu ka seexan weynay ninkan waxaan u qaadayaa heesaha mar kasta xilli habeenimo mar kastoo aanu indhaha isku qabanana waa mid ka dulqaylinaya taasina waxay ahayd dacwadii looga gudbiyey maamulkii sare ee iskuulkiisii Cardofo School.
While he was attending Cordova High School, he used his energetic personality to start freestyling. waxa uu la baxay magaca way aan erjoba balse qaar ka mid ah saaxiibadiisa ayaa kula taliyay gebi ahaanba magacaasi inuu iska dhaafo lana baxo magaca gaaban ee Nella Joba si uu u noqdo qof laga yaqaan gebi ahaanba adduunka magaciisuna uu faafo waxaanu soo geliyay heeskiisii koobaad SoundCloud oo la yiraahdo Freak Anthem balse ma ay noqon heesana qaada gebi ahaanba sidoo kalena gaadhi daawadayaal badan balse waxa uu ku xigsiiyay mar kale isagoo aan niyad jabin heesta la magac baxday No Love Take Over taas ayaa waxa uu ku helay xogaa yaroo daawashaa iyo sidoo kale niyadiis kadib markii ay u daawadeen dad gaadhaya 20,000 sanadii 2018 No love. No All love. night, yeah. Nella Joba waxa uu ka qaatay lacag gaadhaysa $150 waalidkiisa iyo faamilkiisa si uu u qaado talaabada saddexaad ee fanka iyo raabka waxaana ahayd markii uu si dhaba xidigaha u galay fankiisu gebi ahaanba markii uu duubay silsilada caanka ee Shot Flow oo uu ku laran yahay beat Jamaican aadna u macaan badan waqtigaas dadkuna ay aad ula dhaceen muddo yar gudaheedna Joba waxa ku noqday fanaanka loogu jecel yahay daayirta waqtigaas heer heesihiisu yeeshaan xiisaha ugu badan sidoo kalena helaan daawashada ugu badan waxaanu beri shariicadaasi saaray fanaanin badan oo ka mid yahay NBA Young Boy oo waqtigaas ahaa star si weyn loo qiimeynayo gebi ahaan xiise ay lahaayeen heesihiisu iyo sidoo kale fanaanin kale oo daayira waqtigaas oo ka mid ahaa Lil Durk iyo qaar badan oo kale heer dagaal iyo beef aad u ballaaran dhex maray NBA Young Boy waxaana ahayd markii loo aqoonsaday Hottest Rapper in the Year wuxuuna qaatay shahaadada dahabka ee loo yaqaan Platinum kadib markii ay heesihiisu garaaceen lambarada ugu sarreeya ee Billboard iyo qiimeynta kala sarreynta heesaha Kept his name trending all throughout 2019 without even releasing. waxaana isku dayay inay heshiis la saxdaan dhammaanba qolyaha ka socda federaalka iyo dowladda waqtigaas iyagoo doonaya inuu noqdo Joba gebi ahaanba fanaan iyaga u khaas oo iyaga u shaqeeya qarashkiisana ay qaabilaan balse waxaa tidhi maya arrinkaasina si cad uga soo horjeesatay hooyadii oo ahayd managerka markaasi u qaabilsan habu socodka fankiisa maadaama uu aad u daayaraa oo 16 jir oo keliya ninka lihaa Nella Joba heeray diiday 3 milyan oo ay siisay xataa dowladdu $3 milyan oo ay siisay dowladdu ayay gebi ahaanba ka noqotay xataa hooyadiisa dhashay ninka lihaa Nella Joba waxaana heshiis la gashay soona dhaweysay qolyo la dhahda United Masters oo dalab fiican u soo gudbiyay una soo bandhigay rapperka Nella Joba waxaana dhawaan barnaamij ay wada qabteen oo su'aal ay isku weydaarsanayeen isaga iyo hooyadii Joba ay su'aal u dhigeen sidee ayaad u aragtaa inaan soo noqday managerka shaqadaada iyo maamulka gebi ahaanba ganacsiyadaada iyo hab socodka fankaaga waxaan ugu jawaabay waad ku saxnayd maxaa yeelay waxaad ilaalinaysay wiilkaaga iyo horumarkiisa iyo gebi ahaanba sidoo kale hab socodka fankiisa taasina waa sax laantaana waxaan ahaan lahaa waxba ma jiraan hadda manaan soo muuqdeen haddii aad adigu ka maqnaan lahayd fankayga ama waxaan mari lahaa dhib aad u badan What's the best part about me being your manager? markaasi kadib Nella Joba waxaa noqday fanaanka ugu xiisaha badan waxaanu gaadhay guulo wax ku ool ah isagoo soo saaray heeso badan oo istaba jooga kuwaasoo kaalmaha sare ka galay gebi ahaanba qiimeynta iyo kala sarreynta Billboard ee yearliga iyo sanadlaha waxaana ka mid ah heesahaas uguna caansanaa fanaankan heesaha uu soo gudbiyey albanka silsilada Shot Flow oo ay ku jiraan heeso badan oo kala duwan iyo sidoo kale heesaha Click Clack iyo sidoo kale weliba Walk Em Down iyo qaar kale oo cajiib ah oo gebi ahaanba ka yaabsaday dadka no matter what's going on, you hear me, like when we were coming up, he looked out for. intaas haddaynu ku soo gudubno noloshii yaraantii bilowgii fankiisa ilaa uu ka noqday top 1 aan eegno dhanka kriminaalka iyo xabsiyada uu soo maray Nella Joba 29 Maaj sanadii 2021 ee dhaweyd waxaa loo taxaabay xabsiga markii lagu xidhay
saddex dambi oo isdul saaran oo kala in lagu qabtay hub inay gaadhigiisa saarnay daroogo iyo sidoo kale inuu isku day inuu baxsado waxaana la dhigay xabsiga gudihiisa balse dambiga waxa uu sheegay inay ka dambeeyaan rag kale oo saaxiibadiisa kadib markii la soo xidhayna waxaa lagu soo daayay damaanad ninka la yidhaahdo Nella Joba markii uu ku jiray jeelka dhowr bilood oo xabsi ah sidoo kale mar waraysi laga qaaday Nella Joba waxa uu sheegay yaraantiisa mar ka mid ah in lagu xidhay meel lagu edbiyo carruurta halkaas inuu ku soo qaatay muddo badan balse geesinimo iyo adaygu ka soo dhaxlay kuna soo gaadhay halkan uu joogo maanta Joba waxaa lagu dhaliilaa inta badan inuu heesto qaab masraxiyeedka una soo bandhigay heesihiisa qaabka fanaanka daayarka sidoo kale NBA Young Boy iyadoo la yidhaahdo waxay isaga egyihiin haaba xarakaadkii dhaqdhaqaaqa iyo freestyle-ka qaabka codka ay u soo bandhigaan iyo masraxiyadda iyo kolka ay saaran yihiin stage-ka balse waxay ceebi dhacday markii mid si qaab niica ula hadlay kaasoo ka socda dhinaca ninka la yidhaahdo NBA Young Boy kana daba yidhi hadalla qaldan balse maxaad filaysaa inay ku dhaceen waxa uu ku dhuftay feedh la jaray dhulka taageerihii NBA Young Boy sidaasina halis ku geliyey naftiisa balse waxa uu sheegay mar la waraysanayay ninka laha Nella Joba arrintaas inaanay qusaynin ninkan waxaana la weydiiyey su'aal u dhigan sidan muxuu yahay xidhiidhka idinka dhexeeya adiga iyo ninka la yidhaahdo NBA Young Boy waxaanu ugu jawaabay si simple ah waxaanuu yidhi ninkaas wax naga dhexeeya ma jiraan way jirtay maraannu isku fiicnayn haddase sidii hore waxba ma aha mana jirta cadaawadaan odhan karo way jirtaa taas oo marka la caddaynaysa xifaaltanka iyo cadhada iyo xumaanta ka dhaxaysa iyo isbeddelka ku yimi habdhaqankoodii labada nin ee NBA Young Boy iyo sidoo kale Nella Joba Like a 12-year-old, you a kid and like sidoo kale waxaa jirta sheeko aad u xamaasad badan oo ku saabsan Nella Joba iyo ninka la yidhaahdo Chris Brown xilli ay isugu yimaadeen ciyaarista kubadda kolayga oo ay labadooduba aad u xiiseeyaan iyagoo ka kala ciyaaraya laba kooxood oo aad looga yaqaano xagga iyo North America balse waxaa qosol lahayd markii ninka la yidhaahdo Chris Brown uu gooyay ninka la yidhaahdo Nella Joba Jobana waa dhaxda dhulka ku dhuftay taasoo embarrassment iyo ceeb ay ka dhigeen dad nacab oo ay buunbuuniyeen xilli ay ciwaan uga wada dhigeen sheekadan Chris Brown oo ceebaystay dhulkana jiidjiiday waqti ay ku kulmeen kubadda kolayga labadan xidig iyo star adiga maxaad u aragtaa qaabka ay u ciyaarayaan sidoo kale ma odhan kartaa wax ceeb ayaa ka muuqata goobtaas intaasi waxaa dheer Nella Joba dad badan inay ku sheegaan inuu yahay fanaan buunbuun iyo xaaskiisa mar kastana soo muujiya isagoo muuqaala ka duubaya ama hadyada siinaya waxase yaab lahayd kadib markii uu sameeyey surprise qiimihiisu ku kacayo $100,000 halkaasoo uu xeebtii dhammaydba kiraystay kadib markii uu yidhi surprise baan ugu qabanayaa gabadha aan wata anugu keligii baanay meeshan caaway kiraysan tahay aniga ayaa albaabku i xidhan yahay waxaana la arkayay isagoo surprise qurux badan ugu samaynaya halkaasi gabadha indhaha ka xidhaya islamarkaana u kaxaynaya goobtii uu yaalay surprise-ka iyo kadisko balse dadku waxay buunbuunayeen lacagtii ahayd $100,000 ee habeenka ahayd cashada iyo surprise-ka qura on and stuff, but a bill, if you can show them, it's gonna be like that. balse waxa uu soo qaatay mar kale ninka la yidhaahdo Nella Joba hadalkiisii ahaa intii uu duubayay kadiska waxaan ka xabsanayaa inay diido ama aanu qancinin kadiskayga iyo surprise-kaygu waxaanu yidhi wax kastoo aan bixiyo waxay gaga qaalisan igagana foolxun iyadoo diidda taas ayaana igala muhiimsan aniga You nervous? Nervous does not coexist in this human form of this extra launch. waxaa xidhiidh la lahaa gabadhan Mario Brayson muddo badan taasoo la arkayay isagoo mar kasta soo bandhiganaya jacaylkeeda kadisya uu siinayo iyo sida ay isugu qanacsan yihiin intaba iyagoo ka soo muuqanaya baraha bulshada ee ay leeyihiin labadoodu waxayna dhowaan soo bandhigeen uurka ay leedahay gabadhu isagoo aad ugu faraxsan ninka lahaa Nella Joba waxaase naxdin lahayd aadna dadku iyo taageerayaashu ay ku xumaadeen gebi ahaanba markii uu soo bandhigay gebi ahaanba inuu ka dhintay
ilmihii ay colosha ugu siday gabadha lahda Maria taas oo uu ka muujiyay gabi ahaanba niyad xumo ninka lahaa Nella Joba waxa uu furtay YouTube waxaanu furtay meel helbalka iyo waxyaalaha dumarka ismarmariyaan laga soo saaro shirkada waxaanu sheegay gabi ahaanba inuu ka fadhiisanayo fanka am quite waan ka fadhiisanaya waan ka baxaya ayuu yidhi si wadida fanka gabi ahaanba arrintaas way aad uga sii xumaadeen mar kale taageerayaashii ka naxsanaa wixii soo gaadhay fanaankoodii ay aadka u jeclaayeen waxaana la arkayay dhowaan isagoo soo qaadayay hees baroordiiqa oo uu ku bilaabayo warqaduu qorayo taasoo kaga hadlaya sida uga murugaysan yahay dhimashada inantiisa wuxuuna ahaa muuqaalkii ugu dareenka badnaa sannadan 2022 ee soo mara raabarakanaya fanaankan da'da yar ee Nella Joba intaasna waxaan ku safmeynaa sheekada xiisaha badan ee Nella Joba iyo qodobo laga yaabo hadda ka hor inaanad hore uga maqal ninkan iyo raabarkan caanka ee Joba fadlan ha ilaawin inaad igu dhaafto fikirkaaga waxyaalaha ugu xiisaha badan aad kala kulantay muuqaalkeena wixii talo iyo hagida iyo sidoo kale muuqaalada aad jeceshay inaanu ka soo hadallo intaba igu dhaaf qaybta hoose ee comment sectionka hana hilmaamin inaad like garayso muuqaalka sidoo kale subscribe si aanay ku dhaafin kilibyada dambe ee muuqaalada aanu soo wadno insha Allah taala